gabadhii soo zinaysatay rasuulkeena u timid alayhi salaatu wasalaam oo ay tiri dambigaas iga dhacay ilmana waan qaaday tiri rasuul allah ee aniga xadka halay mariyo wala fiirso markaabuu nabigu u yeedhay aabaheed maynantaadiiba ha gabadha astur buu ka yidhi astur xaji maalintay dhashana iyadii ilmahayga ii wada keen buu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam askari ma soo qaban cid ma soo sheegin laakiin iimaankeeda keenay iimaankeeda mujtamacay ku dhex nooshahay baa mujtamac diin leh waa mujtamac hagaagsan oo wanaagsan oo aakhiro uu ka hadlaya ku dhex nooshahay mujtamac ilaahay muxuu yidhi leh oo maalin walba loo sheegayo warka samada ayay ku dhex barbaartay ku dhex nooshahay marka waxay ku dhex nooshahay mujtamac iimaankeeda kobcinaya saa darteed meel ay ku dhuumatay ma jirto ilmihii markay dhashay bay nabiga ula timid iyadoo naaska soo siisay yaa rasuulallah waa kan ilmihii aniguna way kan xadka ilaahay in lay mariyana diyaar baan u haytay oo layga jaro cadaabka aakhira ma garaye meel baa u cadiyaka ninka meel u cadahay meel ka madow waxa soo socdo qofka aanan garana waxa jooga ma garto markaa buu nabigu sidaa u eegay calayhi salaam gabadhii wuxuu ku yidhi kaxee ilmahaaga la noqo oo maalinta naaska aad ka joojisay ii kaale buu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam isagoo iska socdoo lugaynayabay ilmihii gacanta intay soo qabatay waliba kimis bay usoo dhiibtay canjeera usoo dhiibtay way tusaysaa nabi maxamed inuu ilmaheegu haddee toole uu ilkihiisa wax ku cunayo uu haddee toole wax cunayay bay tusaysaa markaa buu nabigu arko wuxuu yidhi haddaba iyadii ilmaheeda kala qaada halkaa baa lagu xidhay markaa geed markaasaa dhagax tuur baa lagu dilay gabadhaas salaat aljanaasadeedii markuu nabigu yidhi ha ku tukatid cumar alfaaruuq radia allahu canhu ayaa yidhi yaa rasuul allah ma gabadha zinaysatay ayaad ku dul tukanaysaa ood ku tukanaysaa ilaa salaadu waa ducada nabi maxamedna waa mustajaabe markaa buu nabigu yidhi cumar u kaadi buu u kaadi ha degdegine way toobad keentay buu way toobad keentay 70 reer madiino ansaara haddii toobadeeda loo qaybiyo way ku filan lahayd buu rasuulku yidhi 70 nin oo reer madiina abu nabigu oo ansaara toobadeeda haddii loo qaybiyo way ku filan lahayd miyaad aragtay buu nabigu yidhi gabadha wali qof lamida nafteedii dhaneed waxay u keentay in ilaahay dartii ku dhan looga jaray u dhimatay mujtamac halkana lagaga beeray ilaahay cabsidiisa halkan laysa al-iimaanu bit-tamanni wala bit-tahalli walakin ma waqara fi al-qalb wa saddaqahu al-amal iimaanku wax la sheegto ama wax lagu xaragooda ma aha buu imaam xasan rahimahullah iimaanku waa nuur qalbiga gala weeyaan camalkuna uu ka marxaati kaco waa gabadh weeyaan taasi wiilkana dhageyso nin dhalinyaraha nabigeena u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa rasuul allah dambi baa iga dhacay buu yidhi maanta anigana xadka hallay mariyo hallayga gooyo markaa buu nabigu sidaa u eegay war dembigaad gashay muxuu yahay balii sheeg wuxuu yidhi xilli waqti duhura dahira oo dadku ay kala hurdaan oo magaalada cidba aynan maraynin ayaan gabadhi yar baa iga soo horbaxday buu yidhi wax kale kuma sameeyne waan qabto labadaa daan baa ka dhunkaday buu yidhi intaa un baan ku sameeyay wax kale kuma sameeynin ee nabi allah maxaa sameeyaa oo dambiga ilaahay igaga dhaafi kara balii sheeg anu aakhira ma kare aakhira waan ka baqaya cadaabka ilaahay waa dhunkasho kaliya markaa buu nabigu yidhi fariiso aayadana markaa soo degtay awaakhir suuratu nahl ma ahayd hud wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layli inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lid-dhakirin dhalika dhikra lid-dhakirin salaada shanta waqti oo baa lagu yidhi shanta waqti tuko gafafka yaryare inaga dhacay baa ilaahay yidhi xasanaadka dambeed samayseen ayaa ka xaynaya oo baabi'inaya saxaabigii markii aayadda dushiisa lagu akhriyay uu farxay markaa buu yidhi ali hada ya rasuul allah aayadani maaniga kaliya ii soo degtay balii sheeg markaa buu nabigu yidhi may ummadeedoo dhan bay aayad u soo degtay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mujtamac hoosta buu nabigu mujtamaca uu ka hagaajiyey hoosta lagu beeray ilaahay cabsidiisii markaasay madaxdoodii noqdeen kuwa cadaalad samaynaya markaasay dhallinyaradoodii noqdeen kuwa ilaahay ka baqaya markaasay haweenkoodii waxay noqdeen kuwa ilaahay ka cabsoonayo xijaaban oo asturan markaasay madaxdoodii noqdeen umanaa dad ammaano lo wixii loo dhiibto loogu imanayo markaasaa mujtamacii dhanna wuxuu noqday mujtamac la yidhi ilaahay baa ku arkaya ku maqlaya
magaalada Madiina dawlad wuxuu nabi maxamed uu ka dhisay askari uunan joogin maxkamad aanan lahayn meel dadka lagu xiro jeelana aan lahayn war horumarka bini'aadamku may gaadhin caalamka balshaga hadda wadanada gaalada reer Yurub haddaan meel walba kaamera lagu rakibin meel walbana ciidan la dhigin dadku sida dhurwaaga isku cunayaan dawlad wuxuu nabi maxamed uu dhisay askari booliisana uu ka dhex shaqaynay qaadina uu dhex joogin jeel dadka lagu xidhanaan lahayn mujtamaca ku nool magaalada Madiinana waxa lagu qiyaasaa 40,000 oo qoys 40,000 oo qoys ka warama qofkii dambi uu ka dhaco asaga nabiga isku keenayo la nabi allo dambiga ma sameeyay laana waa mujtamac gudaha laga hagaajiyo gudaha mujtamac iimaanka qalbigooda lagu beeray ilaahay hayno dambi dhaaf marka majmacan dhalinyaradu badan tihiin inaan diinta ilaahay u dadaalno insha Allah wada diyaar garooba insha Allah dhahada Soomaalida waxa tira hadal haan ma buuxiyo waa hadli karnaa saacado badan laakiin hadal wax ma bedelayo sida kuwa aan sheegay qaylaayay muhaadarada dhageysanayay ee yiri taageerayaasha adaan hay sheekhow dadku sida ha noqon iyaga diintu ka noqon sidaas dhageyste waxa ka sii wanaagsan inaad diinta dhageysataa way fiican tahay in diin leynagala hadlaa waa wax wanaagsan weeyaan laakiin waxa kulliga noqonaya dad diintoodana dhageysta diintoodana barta diintoodana ka shaqeeya diintoodana ku dhaqma dadka muslimiintaana diintu ay ka dhaxayso maxay naga dhaxaysaa diintu waa inaan kala qabato muslim xaqiisa iska ilaali xuquuq baa la isku leeyahay xuquuq xaq ilaahay حق بني آدم لبضع بتير بيدين تقول تاجتها حقوق ذا إلهي إلالي صومك صلاة دي أسطرك وحق إلهي حقوق العباد لبضع والد بوجه الرئيس لبضع حق وين دينتي الإسلام هذا ترى هذا حق إلهي وان إلالين حقوق ذا بني آدم كانوا وكتهم مسعون يسوع عيد ما تقنا بنبي ورقفك عيدا صحابة وحيد هذا عيد وحرون قانا وقفك متاع دينار يدرهم أنا هيسن markaabuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka caydu waxa weeyaan waa qof banka qiyaama iman doona salaadii buu la iman doona soonkii buu la iman doona zakadii buu la iman doona xajkii buu la iman doona dad fara badan baa hortiisa soo tumi doona markaaba la oran dadkani maxay yihiin ya rabbi adoonkaabay ku sheeganayaan xaq mid uu caayay mid uu xantay mid xoolihiisii buu dhacay mid ceeb uu lahayn buu ku sheegay mid wax buu ku sameeyay markaas ilaahay oran doona khayrka uu soo shaqaystay oo dhan ka qaado ayaka u qaybiyo jannada ku galiya dad kale waliba soo hari doona buu rasuulku yiri kuwana maxay leeyihiin adoonkaaba xaq ku sheeganayaan markaas uu rabbul izza oranaya ka soo qaada khayrkiisa u qaybiya ya rabbi khayrkiisa ku hora jannada ku tagay markaas dambiga kuwana ay wataan ka soo qaado asaga madaxa u saaro naar ku tuuro baa la oran doona aydu waa qofka aydu waa kaas وقفك بنك قيامه يمدي صونيا صلاه خير فربدن بو ليمدي لكن حقوق دي بني ادم كنت الى لين وايي خير سو شقيستي ددكا با جنة ku galaya dambiga dadka ay soo shaqaysteena isaga marka naar ku mutaysanaya lidalika xaq ilaahayna han iska ilaalino xuquuqda bini aadamka han iska ilaalino dalkeena iyo dad iyo diinteena han aamino